wafdi ballaaran oo ka socda Islamic Bank ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa markii ugu horeysay soo gaaray magaalada Laascaanood. wafdigan ayaa waxay qiimeyn ku sameeyeen jaamacadda Nugaal University ee ku taala gudaha magaalada Laascaanood, iyadoo halkaasi ay kormeer ku tageen xarumaha kala duwan ee jaamacaddu dadka ku tababarto, iyagoo kormeer ku tagay dhismaha cusub ee jaamacadda looga dhisay magaalada Laascaanood. wafdigan ayaa waxay u kuurgalayeen heerka jaamacaddu marayso iyo waxyaalaha ay u baahan tahay, waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii labada dhinac iyo saraakiil ka tirsan hay'adaasi. kormeerkan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ay ku soo gaadhaan magaalada Laascaanood tan iyo intii la aasaasay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood ayaa iyadana waxay u noqonaysaa wafdigii ugu ballaarnaa ee heer caalami ah ee soo booqda jaamacadda Nugaal University ee magaalada Laascaanood. As our brother has informed you, we are a team from Islamic Development Bank. We are a team of 4 people, 2 external evaluation team and 2 internal. The 2 internal are one Professor Sulaiman of Ahmad University and the Sheikh Ali Dere of Mogadishu University. We'll come back another time to sit together. We're here to look into visit every university in Somalia on behalf of the Islamic Development Bank and write to them a report of what we have seen, plus the forms that we have given the follower yesterday to fill, and then recommend what possible assistance you need. That we know that the university owns land, and if you own land, then whatever you ask from the people who send us, that is Islamic Development Bank, they can give you all hands, because you are going to put where something is yours, to the land that is yours. If it is building, then you are going to build to where you have. And this is a very rare sort of observation we have noted. We were in Mogadishu, and out of the universities we looked at, hardly, nearly all the universities were in a rented place at a new place because of the war that is going on. Some claimed they had land somewhere, and of course we could not go there to see with our own eyes. As he had already mentioned, we have come to act as the eye for IDP. These universities had asked support from Islamic Development Bank before. They even filled their questionnaires. But the Development Bank said, are we sure? You know, in writing you can write very well. But are you sure that this thing exists? Our team leader Islamic Development Bank waxa isaga labeeyay oo la socday Mulati Sibabi oo dhinacan fadhiya midigtayda waa assistant commission secretary higher education Kenya. labadooduba waa niman consultant u ah iyo evaluators Islamic Development Bank. wuxuu ka soo bilaabmay safarkoodu Mogadishu, haddana khaldanayn, Hargeysa, maanta Laascaanood ayay marti inoogu yihiin guud ahaan, gaar ahaan jaamacadda Nugaal University. berri wixii subax loo gaaro hadduu alla idmana waxay u sii gudbi doonaan dhinaca Garowe oo ay jaamacadaha ku yaala dhinaca Puntland iyagana sidoo kaleeto wixii hawl ay kale yihiin kasii dhamaysan doonaan. koowaad aan helo waqti noocaas oo kale taa oo moohaye heer noocaas oo nasiibiyaash waxa hogaaminaya tiimka moohaye Dr. Dabar Abdi Maalim moohaye Somali Kenyana Muslima come from Kenya. They are both doing consultancy job for Islamic Bank development. They are here to see us, what's going on, what we are doing, how we are doing,
and what kind of assistance we need from them. So I welcome one of them to talk. Abdikarim Nolol, S24 TV, magaalada Laascaanood.